وانا دلبتي ولا دغالمينا مدح يا مسار يا هوب waxaan haysanaa dibadbax ballaaran oo ka bedelan banaanbaxyadii ka dhacayay gobolka Gado oo looga soo horjeedo ciidanka Kenya dilalka iyo afduubka ay ka fulinayaan gobolka Gado ayaa maanta ka dhacay magaalada Garbaharey shacabkan oo ku hubaysnaa tooreeyo qoryo iyo ulo ayaa Garbaharey isugu soo baxay waxayna ku dhawaaqayeen erayo ka dhana Kenya iyagoo garab weydiisanaya bulshada Soomaaliyeed dadkan oo aad uga carooday afduubka laba nin oo hor leh oo xalay loogu geystay Daarusalaam fariimo ayay ka jeediyeen taalada Garbaharey iyadoo qof walba uu sheegay inuu difaaca dalka uu diyaar u yahay hooyooyinkan oo ku hubaysnaa baangado qoryo iyo ulo ayaa meesha ka jeediyay hadallo dhiirigelin iyo dardaaran u muuqday dunyada leeydayso badadka biraynayso shacabka leedahay waa shabaab waad ka shalaayaysaa Kenyoy waad ka shalaay doontaa shacabka leedahay waa shabaab oo aad biraynayso geel aad leeynayso ariga aad leeynayso gabdhaha aad xoogayso waraha aad sumaynayso Kenyoy waad ka shalaay doontaa waa isayna Kenyoy waa isayna ka baxo waxa weeye Kenya waxa uu shaqeeyaa calooshaad u shaqaystayaal Soomaaliya u Kenya u shaqeeyo waa u daba dhilif waa u jiifaa dadkooda lagu maadayana waa dhowranayaan liigooda daadanaya waa dhowranayaan barafaa ku maraayo Axmed Madoobe wuxuu yiri meeshaas jirka ma jiro boodada la kaa jabi dhaqan Soomaaliyeed weeye Gado ooyisa waa garaar waxa ay ku tiri gablamay oo go'ay anigu garyaqaan iyo doodo iyo ruux garabkayga amalihi gobolladii baan ka haray diiga Soomaaliya oo dhan anaa kaligay u liito anaa go'ay oo gablamay gashaantidii iyo raggaygi anay gooyeen xaqiiq garyaqaanadii aan lahaa guushayda kamaynan talin go'doon baan galay aniga gobolladii baan ka haray guyaal iyo sanado hore guutiyo odayaal baan lahaa gar niman gooyaan lahaa guulaha keenaan lahaa geesiyaal diiran baan lahaa gaal ii garnaqaan lahaa gibilkayga ah baan lahaa dhibtayda ka gubtaan lahaa garabkayga ah baan lahaa bilgusho midnimo doonaan lahaa haatan dhinaca kale waxaa meesha ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah ee magaalada raggi waa diyaar garoobeen gabdhii waa diyaar garoobeen Kenya waa galaynaa Gaarrisaan tagaynaa Nairobi baan tagaynaa waa la wareegaynaa taangiyadoodan ku diriraynaa qoryahoodaan la soo wareegaynaa walaalaha lagu casuuqay degmada ceelwaaqna waa u hiilinaynaa intii Ilaahay yiraahdo walaalaha degmada ceelwaaq lagu casuuqayna waa u hiilinaynaa arrinta ayada waxaad ogaataan maanta laga bilaabo in aan jihaad u diyaar garowno inaan u diyaar garownaa rabnaa baarlamaanka Soomaaliya way tagayaan inay soo laabanna Allah og waxaan leeyahay taariikh xuna ka tagina gobolkan Gado wuxuu qaylinayay intaad xilka hayseen iyo ka hor dhibaatadu intaas ay haysatay gumaysiga iyo gumaadka iyo kufsiga gabdhaha iyo dhibaatada la geysanay waad maqlayseen dhalaan ma ahidin waxaan leeyahay dira ciidanka Kenya laga bixiyo Soomaaliya nin walba wakiil baa u joogo ismaan baan fariin u faraynaa ismaan fariinta u faraynaa waxay tahay dawladda federaalka inuu jawaab nooga keeno annagu waa soconnaa qori ma wadanno waxaan wadanaa toori waxaan wadanaa midi waxaan wadanaa falaaro waxaan wadanaa waan soo dhaqaaqnay iska kaan celiyaan idin leeyahay Kenya mudaharaad dambe iyo cabasho dambe iyo dawladay arag iyo dalow arag waa dhamaata waxa weeye maanta wixii ka dambeeyo dhaqaaq baan nahay waana gaadeen hadhina ciidamada waxaan leeyahay xuduudda joogto haramcad iyo gorgorow dhaqaaqa dadkiina arka waxa la idin soo tababaray oo la idin soo carbiyay oo u soo baxdeen oo kitaabka u soo marteen oo u soo dhaarateen waxa weeye shacabka inaad badbaadisaan shacabkeenni waa dhamaada shacabkeenni waa luma shacabkeenni habeenba shan baa lala baxaa xasuuq bay wadaan Kenya waa bariya bangaal baan ku leenahay waa kugu celcelinaynaa Ismaan Sheekh Cabdi Qurax oo ah ammaanduulaha ciidanka xoogga ee gobolka Gado ayaa bulshadii halkan isugu soo baxday oo ugu laab qaboojiyay inay isdejiyaan iyaguna ay diyaar u yihiin
cid walba oo sharaftooda ku soo xadgudubtaa inay ka ciidan ahaan ka difaaci doonaan. Diyaarsanahay inaan dalkan difaacna aan ka difaacna cadowga uu leeyahay cadowga oo dibadda iyo gudaha labaduba ku nool. waxaan idin cadaynaynaa oo idinka ballan qaadaynaa idinka hortiin annaga inaan dhimanno oo aan hortiin cadowga la dagaalanno oo aan waxa aan haysano aalada kulligoodna cadowgan ku wajahno. idinkana waxaa la idinka doonayaa inaad sidaas oo kale u soo garab istaagtaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. madaxda Soomaalida waxaa laga doonayaa oo siyaasadda qaabilsan inay ka keenaan jawaab cad oo la garan kara dawladdan dariska anahay ee Kenya. si kastaba ha ahaatee dibadbaxan ayaa daba soconaya dibadbaxyo maalmihii ugu dambeeyey ka soconayay gobolka Gedo, waxaana dadku inta badan ay maanta aad uga caroodeen marka laga yimaado dilalkii dhacay iyo afduubkii hore 4 kale oo nin oo xalay laga afduubtay deegaanka Daarusalaam oo hoos yimaada magaalada Ceelwaaq. Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo.